waxaan inii dardaarmayaa buu yidhi faxkum bayna annaasi bilxaqi dadka cadaalad ku kala saara si cadaaladana ku xukmiya. xafladda caleemasaarka nabadoon Siciid nabadoon Maxamuud ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada isimada nabadoonnada cuqaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada iyo haweenka guddiga qabanqaabada caleemasaarka nabadoonka ayaa si wanaagsan u soo agaasimay xafladdaasi qaar ka mid ah isimadii cuqaashii nabadoonnadii ka soo qayb galay xafladda nabadoonka cusub ayaa alla waxay uga baryeen in xilka uu u fudeeyo beesha soo doortana ay ku garab galaan hawsha adag ee loo igmaday. inta lidii sheegana haddii la ku ron yahay beesha maxamed cabdisamad 9 sano nabadoon ma lahayn intaasna haddii la ku ron nabadoon baa lagu hayay in haddii la ku ron la doorto reerku yeesho maanta baa amarkii noqday ilaahay idankiisa dee waxa loo doortay maantay Siciid Maxamed madar sharmaarke maaga la dooranayo 56 bay ahayd waraaqihii la dooranayo anigu ragga u qoray baan dugsiga dhiganay caleemasaarka waa joog kii Maxamuud Siciidna waa joog kii saddexaadna maanta jooga ilaahay mahadiis ilaahay gaarsiiyay baa mahad u celinaya waxaan cabsi ka qabay in nabadoonno ka horeeya jiraan aan ilowsanahay anigu aan soo gaarin iga horeeyay laakiin ragga iga horeeya sheegay inuu saddexdaa ka koobnaayeen nabadoonkana iga hal beesha iga hal oo ninka aad warateen xoolaha ku qasirteen oo dadka ay isugu yeerteen oo waxaas ku samayseen haddaydina la shaqeyno garab joogsan noqon wuxuu sameeyaa ma jira waa hal bacad lagu lis waa soo dhaweynayna waa u mahad celinayna waana u ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo xilka uu qaaday. salaam ayaa nabadoon Siciid Maxamed nabadoonka waxaan leeyahay xornimo waxaan leeyahay waxa lagu saaray xil waxa ku soo doortay beesha Maxamuud Cabdisamad waxay ku doorteen nabadoonka waxaan rabaa cadaalad sinaan iyo hoggaan dhaqan oo wanaagsan. nabadoon Siciid nabadoon Maxamuud ayaanu hambalyeynaa oo meesha u nimi caleemasaarkiisa insha Allah taala aad baan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay. waa nabadoon Siciid Maxamuud oo ah beesha Maxamuud Cabdisamad baynu soo nimi waxa leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo xilka u fududay. waxaan halkan uga hambalyeynayaa nabadoon Siciid Maxamuud waan halkan waxaan leeyahay hambalyo waan kugu faraxsanahay waana ku dooranay. dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka degmada Baargal oo isna madasha ka hadlay caleemasaarka ayaa waxa uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono nabadoonka cusub. insha Allah waxaanu ballan qaadaynaa inaan la shaqeynayno nabadoonka iyagana uu yahay nabadoon Siciid nabadoon Maxamuud nabadoonka cusub ee maanta lagu caanushubay iyo suldaanka guud Suldaan Indhataag ayaa bulshadii ka soo qayb gashay xafladda waxay ka codsadeen in nabadoonka lagu garab galo hawsha adag ee u taala. waxaan u mahadnaqayaa oo mahad leh dadka xafladdan soo ajiibay meelaha dheer uga yimid taraaga dheer u soo galay shidaalka iyo kharash ku soo bixiyay waa mahadsan yihiin dadka ka soo shaqeeyay waqtiga badan uu qorrax fadhiyay amniyada dheer siiyay halkan soo gaarsiiyay kuna guuleystay iyaguna waa mahadsan yihiin. beeshana waa lala taliyo waxba loo soo jeediyay waxa wanaagsan oo ay qabteen iyo tacabka ay maanta tabceen waxa la rabaa inuu taabagal noqdo wuxuuna taabagal ku noqonayaa inay garab istaagaan nabadoon inay sida la yiri oo cuqaashi meesha ka hadashay ay ka hadleen ay guntabaan oo ay maaragtay halka ka bilaabaan in la xoolayo waa ku jirtaa meesha in la shaqeeyo oo loo noqdo bidaana suu wanaaga in loogu kaalmeeyo. xasan heykal SBC Boosaaso.